بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. halka waxaynu tacsi uga diraynaa maxamed ibraahim warsame hadraawi oo wadankii Soomaaliland ku geeriyooday. waxaan dhammaan tacsidan u diraynaa dhammaan inta af Soomaaliga ku hadasha meel ay joogaan adduunyada iyo dhammaan qoyskii iyo qaraabadii uu ka baxay. waxaan leenahay ilaahay samir iyo iimaan ka siiyo, isaga ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo. waxaynu ognahay taariikhdiisii de kuma soo koobi kareyno oo taariikh caama aniga macallin buu yahaa, marka taariikh weyn oo qadiima ayuu lahaa. waxaan leenahay ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo intii uu ka tagay dhammaan ummadda waxa af Soomaali ku hadla iyo ummadda reer Soomaaliland ba dhammaanteen waxaan leeyahay ilaahay samir iyo iimaan ka siiyo. Wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. إنا لله وإنا إليه راجعون. halkan waxaanu ka tacsiyadeynaa maxamed ibraahim warsame, ilaahay naxariista jannaha siiyo. ummadda Soomaaliland iyo ta Soomaaliyaba ilaahay samir iyo iimaan dhamaantiiba ka siiyo, iyo eheladii uu ka geeriyooday cayladii. ilaahay waxaanu ka baranaynaa isagana jannadii firdawsa ilaahay inuu ka waraabiyo. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. كل نفس ذائقة الموت. كل نفس ذائقة الموت. geerida naxdin kale naxdinta le Allah yarxamo maxamed ibraahim hadraawi ayaynu tacsi ka diraynaa ehelkii iyo asxaabtii iyo qaraabadii iyo dhammaan ummadda Soomaaliland. nin qaran buu ahaa, ma ahayn qoys. ilaahay samiriye iimaan dhamaantiin baa inaga siiyo. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. waxaan halkan tacsi uga dirayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee luqadda Soomaaliga ku hadasha in ilaahay samir iyo iimaan ka siiyo maxamed ibraahim warsame oo ahaa abwaan caana oo ummadoo dhan wada taqaano. ilaahay waxaan uga rajaynaynaa naxariistii janno inuu ilaahay ka waraabiyo. nin aad iyo aad u wanaagsan buu ahaa, tacab badanna geliyey ummadda Soomaaliyeed iyo dhaqankeeda iyo af Soomaaligeedaba. waxaan ilaahay uga rajaynaynaa naxariistii janno inuu ilaahay ka waraabiyo dhammaanna dadka muslimiinta dadka markaa muslimiinta iyo dhammaan gaar ahaan dadka Soomaaliyeed uu ilaahay ka siiyo samir iyo iimaan, gaar ahaan ehelkiisii iyo qaraabadiisii ayaan markaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu samir iyo iimaan ka siiyo aan uga rajaynaynaa. dhammaanna waan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed oo dhan meel ay joogaanba. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. halkan waxaan ka sacsideynayaa marxuumka dhintay. ilaahay waxaan u rajaynayaa qabrigiisa uu nuuro. samir iyo iimaan baan leenahay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. anigoo ah Khatar Cali Xuseen kana tirsan community-ga Sheffield, waxaan halkan ka tacsiyadeynayaa abwaankii weynaa ee hadraawi. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. aad iyo aad bay noo saameysay geeridaas naxdinta leh. waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala uga baryayaa inuu janno firdaws al-acla geeyo, kitaabkiisa midigta alla uga dhiibo, marti la jecel yahayna rabbi ka dhigo. inta hadalka ma sii wadi karo, aad baan u naxay. marka waxaan leeyahay innaguna waan daba soconaa uun, maalinba qof baa la qabanayaa. ilaahay khaatimo khayr macal iimaan, ilaahay khaatimada khayr ha noogu khatimo. intii naga dhimatay abwaano madax culimo lahayd ilaahay u naxariisto, innagana allah inooga daba naxariisto. بسم الله الرحمن الرحيم. halkan tacsi waxaan uga dirayaa hadraawi, ilaahay naxariistii jannatul firdaws ka waraabiyo. aad baan uga naxnay. waxa weeyaan nin magac leh ayuu ahaa dalka Soomaaliya gudaheeda. ilaahay waxaan uga barinay inuu jannatul firdaws geeyo. ducadii waa la soo wada dhameeyay, annagana nooga daba naxariistayaan ilaahay uga baryayaa. warkaas kana soo gaaray aad iyo aad baan uga tacsiyadeynaa ehelkii abwaankii weynaa maxamed ibraahim warsame hadraawi loo yaqaano. marka haddaanu reer Sheffield nahay, anoo magaca Sheffield ku hadlaynaa, waxaan tacsi u soo diraynaa ehelkii iyo marxuumkii dhintay. allah yarxamo. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun baanu leenahay. samir iyo iimaan ehelkii uu ka dhintay hadraawi. إنا لله وإنا إليه راجعون. كل نفس ذائقة الموت. halkan waxaan tacsi uga diraynaa Allahu naxariistay hadraawi oo maanta ku geeriyooday Burco. waxaan leenahay dhammaan ummadda Soomaaliland iyo ummadda Soomaaliyaba dadku ka baxay samir iyo iimaan Allah inaga siiyo. ilaahayna isagana ha u naxariisto, jannadana Allah ka waraabiyo, qabrigana Allah u nuuro. sidoo kale aniguna waxaan insha Allah tacsi uga dirayaa hadraawi oo ku geeriyooday in ilaahay subxaanahu wa tacaala naxariistii janno siiyo. kullu nafsin daaqiyatul mawt. qof walba waa dhimanayaa.
marka dhammaanteenba insha allah ilaahay subxaana wa tacaala sabir iyo iimaan ha inaga siiyo lillaah wa inna ilaahi raajicuun ilaahay ha u naxariisto hadraawi geeridiisii la noola soo sheegay maanta saaka ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyo aad iyo aad baan ugu soo ducaynaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa halkan aan la kulmay oo hadda aan maqlay abwaankii maxamed ibraahim warsame oo dalkii ama geyigii hooye ku geeriyooday maxamed ibraahim warsame walanwal ilaahay waxaan ka baryayaa inuu jannadii naxariis uu ka waraabiyo samir iyo iimaan ehelkii qoyskii uu ka tegey iyo ummadda somalilan ama soomaaliyeedna uu ka siiyo cadaabulqabriga ka ilaaliyo ilaahay qabriga u nuuro inna lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun ilaahay subxaana wa tacaala waxaynu ka baryaynaa maxamed ibraahim warsame hadraawi inuu ilaahay cadaabulqabriga iyo cadaabka jahannaba ka nabadgeliyo ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo ilaahay waxaynu ka baryaynaa inuu marti la jecel yahay ka dhigo ayaynu ilaahay ka baryaynaa wuxuu ahaa runtii nin anigu waxaannu isku barannay la foolaannu isku barannay meeshii dhallinta kacaanka la odhan jiray baannu ka wada shaqaynay riwaayaddii uu berigaa la dhigay halkaasaa lagu qabto oo lagu dhigay markaa aqoon badan baanu lahaa wuxuu ahaa runtii nin bulshaawiya nin abwaana wuxuu ahaa nin dadku u siman yahay marka ilaahay waxaynu uga baryaynaa waa ogtihiinoo halgankii qayb libaax buu ka qaatay isagii ninkii loo odhan jiray gaariye gabayadoodii ay dadka ku kicinayeen marka ilaahay waxaynu ka baryaynaa nin weyn baa inaga baxaye inuu ilaahay naxariistii janno ka waraabiyo cawl khayr qabana ilaahay inaga siiyo ummadda reer somalilandna waan ka tacsiidaynayaa gaar ahaan waxaan ka tacsiidaynayaa qoyskiisii baan ka tacsiidaynayaa walaalihii baan ka tacsiidaynayaa iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo intii asxaabtiisa ahayd baan ka tacsiidaynayaa ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyo ha loo soo duceeyo بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت waxaan ilaahay uga baryayaa abwaankeenii weynaa maxamed ibraahim warsame hadraawi oo hargeysa ku geeriyooday ayaa waxaan uga tacsiidaynayaa inta af soomaaliga ku hadasha soomaali oo dhan dowladda somalilan madaxweynaha golayaasha iyo dowladda somalilan oo dhan ayaan uga tacsiidaynayaa waxaan u tacsiidaynayaa walaalihii xaaskiisii ehelkii qaraabadii saaxiibadii gaar ahaan saaxiibkii rashiid galweyne oo magaalada Sheffield nala jooga oo ay saaxiib ahaayeen isagana si gaar ah baan ugu tacsiidaynayaa dhammaanba waxaan leeyahay samir iyo iimaan ummadda Soomaaliyeed inta af Soomaaliga ku hadasha waa geed weyn oo inaga dumay ilaahayna kuwa ka sii wanaagsan ilaahay haynugu rasaaqo waayo wuxuu ahaa nin ummadda isku haya nin daacada nin dulqaad badan nin ammaano jecel assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan u tacsiidaynaynaa halkan uga tacsiidaynaynaa abwaankeenii ibraahim warsame hadraawi ilaahay jannatul firdaws ha ka waraabiyo ilaahay kitaabkiisa midigta ha uga dhiibo ilaahay su'aasha ha waafajiyo ilaahay qabriga ha waasiciyo ha u nuuro bismillaahi raxmaani raxiim inna lillahi wa inna ilaahi raajicuun kullu nafsin daa'iqatul mawt maanta waxaa geeriyooday ninkii af Soomaaliga hodanka ku ahaa ee ummadan afkeeda kor u qaaday taariikhdana baaldahaba ka galay maxamed ibraahim warsame hadraawi waxaan ka tacsiidinayaa qoyskiisii qaraabadiisii iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogto waxaan leeyahay taariikhda xusuustonta waa ninkii adduunyadan ka saahiday ee runtii aakhiro ilaahay jannada ka waraabiya una ayuu meeqaam ku lahaa wadamadan qurbahan joogto dadkii ugu soo horeeyay yimi buu ahaa dadkii masiirkooda iyo noocay u eegin markuu arkay aan iska dhiibin ee yiri ilaahay un baa la isu dhiibaabo ahaa nin taariikh badan la buu ahaa marka wallahi inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun laakiin maanta geeri naxdin la bay ahayd de kullu nafsin daa'iqatul mawt waa meel la wada horan yahay oo marnaba aan la gafaynin marka aad baan uga tacsiidinaya dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo dhan meel kasta joogto ka tacsiidinaya inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun kullu nafsin daa'iqatul mawt ilaahay ha u naxariisto abwaan maxamed ibraahim warsame hadraawi wuxuu ahaa adoon aad u wanaagsan shakhsi aad u wanaagsan buu ahaa oo waxa weeyaan
dadka u axsaan sameeya oo waxa weeyaan suugaan badan lahaa taariikhdiisu waxaynu koobi karna ma ahayn inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun waa u tacsiidanaya geerida tiraayada leh aad iyo aad baan u tacsiidanaya ilaahay godka ha u nuuro ha ku irsaaqo jannatu firdawsa aclaa inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun waxaan halkan ka tacsiidaynayaa abwaankii weynaa ee geyiga Soomaaliyeed inta af Soomaaliga taqaanaaba caanka ka ahaa ilaahay naxariistii inuu ilaahay janno ka waraabiyo ilaahay jannatu firdawsa inuu kitaabkiisa gacanta ka geliyo inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun ummadda Soomaaliyeed oo dhan waan ka tacsiidaynayaa intii af Soomaali ku wada jannada soo duceeyay baan leenahay soo duceeyaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلكن أنيقو سليمان فارح سليمان ضحكة وعن تعسوق الدريا محمد إبراهيم ورسمه دراوي الله كورابين حريستي تشرنا. إن الله وإنا راجعون إن الله وإنا راجعون إلى السبرية إيمان نقص يابان كاوين نقب حي الصومالي أو دن الصومالي لام بدمانت إلى هيبان قبري إن كان فردوسجي أنقو كم من أوضياش يا سياسيين تمقال الشافيل سمرية إيمان بانون سمرية إيمان إن الله وإنا راجعون. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. waxaan halkan tacsi uga dirayaa ehelkii iyo qaraabadii iyo bulshooyinka Soomaaliland iyo qaranka Soomaaliyeed geerida naxdinta leh ku timi Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo qabrigana ha u nuuro marti la jecel yahay Allah ka yeelo ee bulshadana samiriyay maana ka siiyo iyo ehelkaba waa tacsi aad iyo aad maartay noogu adag geeri aad noogu adag weeye waxaan leenahay ilaahay naxariis jannaha ka waraabiyo mar labaad iyo mar saddexaad baan ugu celinaynaa ilaahayna ha naga aqbalo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan waxaan salaamayaa reer Somaliland iyo ummadda Soomaaliyeed tacsi weyn ayaan diraynaa maanta anagoo magaalada Shafiila Maxamed Ibraahim Hadraawi baan tacsiyadeynaynaa familkiga qaraabada iyo ehliyada iyo reer Somaliland iyo reer Soomaaliya dhammaantood marxuumka ay naga dhintay ilaahay jannada ha geeyo qabriga Allah u nuuro ilaahay kafantiisa u jidiidiyo ilaahay kitaabkiisa midigta uga dhiibo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu ilaahay jannada geeyo allahumma aamiin inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waa saacadu ma la kala horeynaya waxaan dhammaan soo gaarsiinayaa ummadda Somaliland in halyeygii magaranaysa fanku ama magaranaysa murtidu uu una soo gaadhay magaranaysa naxdintii magaranaysa laakiin waa mid loo wada dhashay ilaahay waxaan baryaynaa inuu aakhiradiisa jannooyinka ugu wanaagsan u geeyo dadkii uu ka dhashana waan ka taxsiinaynaynaa fankii Soomaaliga ahaa iyo murtidii Soomaalida ahayd ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in halkiisii magaranaysaa yaa oday ama hal abuur khayr leh inuu ilaahay na siiyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم halka waxaan doonayaa inaan taxsiin uga diro abwaanka weynaa Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi in waxaan leeyahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun rabbina xariisi jannaha ka waraabiyo maanta waxa dhacay library ba dumay oday kasto ama nin kasto haliyay waxa weeye waa library ka baxay qaranka marka Hadraawina wuxuu ahaa Soomaalida fikta sare gaadhay ayuu ka mid ahaa rabbina xariisi jannaha ka waraabiyo waan la qaybsanaa familkiisii iyo ehelkiisii iyo dadka reer Somaliland iyo Soomaali oo dhanba tacsida iyo tiirayada السلام عليكم ورحمة الله وبركاته